dhacdo kale oo murugadeeda xambaarsan ayaa saaka ka dhacday waddanka Kenya magaalada Nairobi xaafadda Islii ee Soomaalida ay degan tahay waxaa la soo warinayaa in halkaas guri ku yaalo laga helay gabar Soomaali ah oo meyd ah gabadhan ayaa waxaa la sheegay in lagu magacaabi jiray Samsam kaligeed ayaa guriga degneed muddo 3 maalmood ah deriska asxaabta iyo familkaba maysan arkin codkeedana lama maqal intaas kadib dadkii shaki ayaa ku abuurmay waxaana la bilaabay in la baadi goobo in la raadiyo ugu dambeyn waxaa loo tagay qolkeedii iyada oo dhex taalo oo meyd ah 3 maalin ayay ku jirtay qolkeeda iyada oo meyd ah ugu dambeyn meydkeeda markii la arkay waxaa la wargeliyay booliska waddanka Kenya waxaana meydkeeda la wareegtay hay'adda dambi baarista waddanka Kenya Allah u naxariistay Samsam uguma horeyso gabar Soomaali ah oo meydkeeda laga helo guri muddooyinkii ugu dambeeyay waddanka Kenya magaalada Nairobi xaafadda Islii waxaa ku soo badanayay meydadka gabdhaha Soomaalida ee laga helayo guryaha ama hoteelada xaafadaas ku yaalo 2 bilood ka hor sidaan oo kale gabar Soomaali ah ayaa meedkeeda waxaa looga helay hotel ay degneed Ilaahay ha u naxariisto dhamaantood balse ilaa iyo hadda baaritaanada ay sameeyeen booliska waddanka Kenya wax warcelin ah kuma aysan soo celin ehelkii ay dadkaas ka dhinteen iyo warbaahinta intaba balse kiiska gabadhan lagu magacaabo Samsam waa uu ka duwan yahay kiisaskii hore waxaa la sheegay guriga in ay iyada kaligeed degneed cid kale oo la wehlisa ama la degneedna aysan jirin qof soo booqan jirayna uusan jirin balse gurigaas uu ku dhex yaalay guryo ay dad badan degan yihiin familka iyo asxaabta iyo deriskaba ay is yaqaaneen markii la waayay oo 3 biri muuqeeda iyo maqalkeedaba aan la arkin dadkii ay baadi goobeen oo raadiyeen ugu dambeynna meedkeeda ay ugu tageen guriga waxaa la sheegay in aan la arkin wax calaamado ah oo muujinayo in falka uu yahay fal dil ah balse la sheegay gabadhan tii rabbi in ay u timid oo guriga ay ku dhimatay iyadoo kaligeeda halka ay ku sakaraaday iyada oo kaligeeda halka ay ku xanuunsatay iyada oo kaligeed ahna halkaas ay ku geeriyootay cid ku wehlisa ama la sheegay falka dhimashadeeda ah in ilaa iyo hadda uu lug ku leeyahay ma jirto balse weli baaritaanka waa uu socdaa marka lagu leeyahay tolkaaga iyo asxaabtaadaba dhaxda ayaa looga jiraa Soomaaliduna ay ku mahmaahayso waxaa laga cabsanayaa tan oo kale adiga bini aadan ayaa tahay wax kugu dhacaayana ma ogid wax kugu dhacaayo iyo meel lagu soo joogo kama warhaysid sidaa darteed in ay dadka ka warqabaan oo aad leedahay dad asxaab ah oo ka warhaayo famil kula socdo asxaabtaada iyo familkaaga ay isku xiran yihiin waa muhiim naftan liisma siinin intii guri cidla aad ku dhiman lahayd oo qalfooftaada guriga laga heli lahaa waxaa ku roon in ay jiraan dad wehel ku ah oo ka warhaayo xilliga aad xanuunsanayso oo ka warhaayo xilliga dhibaato ay kugu dhacayso oo ka warhaayo xilliga geerida sakaraadkeeda aad maraysid si ay wehel kugu noqdaan mar kale muuqaalkan wuxuu xasuusin u yahay qof